madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. wafdiga madaxweyne Shariif ayaa waxaa ka mid ahaa qaar ka tirsan golaha wasiirada dowladda ku-meel gaarka oo ay ka mid yihiin wasiirada wasaaradaha gaashaandhigga, arrimaha gudaha iyo ganacsiga. ujeedada safarka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ahayd ka qaybgalka shir saddex geesood ah oo la yeelanaya madaxweynaha dalkan Kenya Mwai Kibaki iyo madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni. shir saacado kooban qaatay oo ay yeesheen saddexda madaxweyne ayaa ugu dambeyntii laga soo saaray 7 qodob oo ahaa waxyaabaha ay isku afgarteen madaxda kaasoo saxaafadda ajnabigu u akhriyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Kenya Musa Wetangula. Xuseen Carab Ciise oo ah wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo la hadlay shirka kadib qaar ka tirsan saxaafadda Soomaalida ayaa si kooban u sharaxay waxyaabihii loogu wada hadlay shirka ay yeesheen saddexda madaxweyne. idinku siino ma garanaysaa war idinka siino wixii ka soo baxay shirkii maanta ka dhacay ee dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha Kenya Kibaki iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. runtii wuxuu ahaa shir adkeynaya communique hore soo baxay 18 October iyo kii ku xigay lagu qabtay Addis Ababa ee IGAD ku shirtay iyo kii ugu dambeeyay wafdigii Cabdiwali ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wafdigii uu hogaaminayay ee runtii lagu adkeynayay wada shaqaysiga iyo runtii in la iska Kenya iyo Soomaaliya iska taageeraan la dagaalanka al-shabaab. marka maanta waxay ahayd mid madaxweynayaashu ay ka wada hadlayaan wixii mugdi ku jirana meesha laga saarayay. su'aalo badan baa la isweydiiyey. ugu muhiimsanna waxay ahayd runtii in la dagaalanka al-shabaab mid laga yahay regionka oo dhan uu khatar ku yahay iyo strategy marka lagula dagaalami lahaa in miska la soo saaro oo wax la isku og yahay lagu hawlgalo ciidanku hawlgalo. marka taa waa la isku fahmay in leaderka uu qaato ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed runtii iyagoo ay taageerayaan oo la shaqeynayaan walaalahooda Kenya. taana waa la isku raacay. marka runtii iyo in international community runtii lala hadlo si loogala hadlo inay caawiyaan wixii macaawina ay keeni karaan xagga humanitarianka iyo xagga inay operationka support gareeyaan. safarka madaxweyne Shariif Sheekh Axmed uu ku yimid waddankan Kenya ayaa ah kii ugu horeeyay tan iyo markii ciidamada Kenya ay gudaha u galeen dalka Soomaaliya 16 bishii tagtay October, taas oo waji cusub u yeeshay siyaasadda iyo waliba dhaqaalaha Geeska Afrika. Maxamed Cusmaan Xabiib, Royal 24 TV, Nairobi.